aniga iyo walaasheeda mar walba waan isku dhaweyn waxaana jeclaan inaan isla ciyaarno laakiin waxaan maqli jirnay qeyli ka soo yeerayo gurigeena anaga qof walba cunto la siiyo uma hayno sidaan sidee ugu noolaanaynaa aniga waxaa isku dayayaa qof walba inuu faraxsanaado ma i tiri aniga ma faraxsani ka waran hee sidee igu farxine waan isku dayayaa ii sheeg adiga maxaa rabtaa waxaa rabtid oo ku farxaysid waa kuu sameynaa aniga ayaa kuu sheegaya waxaa rabo ilmahaaga waxaa uga soo tagaynaa duur aad u weyn maya waa arrin halis ah adiga sidee arrintaas uga fikirtay midtaas waa aniga go-aankayga waana sameynayaa meesha ayay taagnaayeen wax walba eedadooda ku hadlaysana waa ay maqlaayeen biiri aniga waa wadayaa waxaana keenayaa duur dheer waana uga soo tagayaa kadib ayaga waxay sameeyaan ayay weynayaan markay daalaanni ayaga ayaa iska baxaayo wayna dhumaayaan mana noo soo laabanayaan laakiin ilmahayga xayawaanaad ayaa cunayaan waawa midtaas waxaa aniga rabo ha ooynin walaashay anaga xal ayaa keenaynaa waana ka badbaadaynaa maxaan sameynaynaa anaga hadda eedda waxay rabta ayaanu sameynee waxaas ha ka walwalin aniga ayaa fikrad keenaayo ilmo kaalay wakhtiga cuntada u laheedeen ayaa la kaariyey maanta anaga rootigan laku casheynaynaa ee hoo qaata horta qolkiina kale ee ku cuna haye eeto habeenkii markay cuntada cunayeen saara aad ayay u ooynaysay ani aad ayaa u cabsanayaa haasal aamus adiga oohintana jooji haasal adiga rootigaaga macanaysid miya maya fikrad ayaan haayaa haasal asiga wuxuu keenay fikrad oo ah inuu qaato rootiga kadibna birihuu ku calaamaysto meelaha ay marayaan soo kaca ilmo dhaqso waxaa u baahannahay inaan keemaha aadna kadibna qoryo soo kurno aabba mana raacay miya maya aabbahaagu wuu xanuunsan yahay markay u dhaqaaqeen dhanka iyo keemaha haasal wuxuu bilaabay qorshihii uu lahaa oo ah inuu rooti jabka jaro kadibna uu wadada dhigto si hadhow labadoodaba ay u maraan in ugu noqoto calaamad haasal dhaqso soco waqti badan ma heesano haye eeto balse nasiib xumo haasal qorshihiisa waxaa ku ciyaaray duurjoogta maxaa yeelay waxay cuneen rootiga uu meelaha ku calaamaystay ilmo iniga waa daasheen socodka dheer aa soo socoteen marka waa inaad meeshan fadhiisatiin aad kuna sitiin anigana waa soo laabanayaa waqti dhow
haye eedo. ayada waxay nooga tagtay meeshanayda halista badan anaga tagtan baabeena muu arkeeno waxwaha ka baqin abaayo aniga meel walba soo marno waxaa sii dhigtay rooti midaaseetina calaamadee noo noqonaysaa haddan guriga ayaa aadaynaa. waxay bilaabeen inay raacaan rootigii ay soo calaamaysteen balse waxa uu ku kala go'ay waddada dhexdeeda sababtoo ah qaybta kaleeta waxaa dhameeyey duurka joogtay. alla maya rootiga dhan waxaa cunay xayawaanaadka duurka joogo. hadda anaga maxaa samaynaynaa marka anigana gaajo ayaa i heeso. hadda waqti haween ayaa soo dhow waa inaan helnaa meel aan sii joogno. hansel iyo walaashiisa waxay u soo dhaqaaqeen inay raadiyaan guri ay sii joogaan balse waxay arkeen gurigii shukulaatada ka samaysnaa midaas labadooda waxay u ahayd arrin farxad leh. yaa jooga meeshaani maxaase ka samaynaysiin meeshaani tuusa wejigiina raali noqo marwo aniga iyo walaasheeda waan dhunnay meeshaneeti ayaana aragnay baahi ayaan nehaysay nafteenana waa kontarooli weynay gurigaaneed shukulaatada ka samaysan. waxaad ku hadashay hadal qurux badan wiilgiihow yariiska soo gala ilmahaygii gudaha. saaxiirada indhoole ayay ahayd ayaga ayaana taataabatay si ay u ogaato inay cayilan yihiin inay caato yihiin. ilmahaygii aad ayaa ininka caato u tihiin marka maxaad ugu soo geli la'dihiin gudaha aad u cuni la'dihiin wax walba oo aad rabtiin xitaa waxaa ku sugi kartiin subaxa. ayaga aad ayay u farxeen arrintaas saaxiiradan waxay ku amartay inay gudaha soo galaan waa ayna soo galeen. markay gudaha soo gashatay qorshe ayaa ka wadatay waxayna rabtay inay ilmahaneedii ay qorshe u madeegto. subaxii ayaga oo hurdo ayaa u imaatay hansel ayaana xoog ku wadatay. istaagka waryahay caajislayda ah ee waxaad ii keentaa biyo aan wax uga kariyo walaalkaaga cuntadu cun lahaa. asiga waa caato marka waa inuu cayilaa cunto ayaa siinayaa markii uu cayilayna aniga ayaa cunaayo. saara waxay bilowday inay guriga ka shaqayso sababtoo ah waxaa ku amartay saaxiirada.
markasta saaxiradda cunug yaraa waxay u keeni jirtay hilib iyo digaag iyo waxyaabahaas. Gabadha yareedna waxay siin jirtay lafaha. Hansel, dhaqso adiga farahaaga i tusi si aan u ogaado inaad cayishay iyo in kaleetay. Dhaqso adiga farahaaga i tusi si aan u ogaado inaad cayishay iyo in kaleetay. Isla sili ayuu sameeyey Hansel oo wuxuu uu tusay lafaha uu ka dhameeyey doorada. Waan daalay sidaan u sugayay cayilkaaga. Hadda ka bilaawda cayilkaaga ma wa sugayay. Hadda ayaana ku cunaya aniga. Saara, dhaqso dabka fur. Dabkana ku sii dar si uu u karkaro. Laakiin aniga weligay waxaas ma sameynin, mana aqaan sida loo sameeyo. Maxaa sameeyaa marka? Gabar doqon ah ayaa tahay. Aniga ayaa sameysanaya naga leexo. Ilbaabka ayaa furaysaa, kadibna gudaha ayaa kaleysaa si aad qoryaha u shidid. Saaxiradda ma aysan ogeyn in ay Saara ka wadatay qorsho. Saarana waxay bilowday inay ku tuurto saaxiradda. Sidaas ayayna u gubatay, ilbaabka ayayna ku xirtay. Markaasna waxay u soo carartay dhanka iyo walaalkeeda. Xabsigana ayay ka furtay walaalkeeda. Sidaasna dib ayay uga midoobeen Saara iyo Hansel. Labadii walaalo waxay bilaabeen inay aruursadaan dahabkii dheemanka yaalay guriga saaxiradda. Hadda ka bilaabatana ayaga kama walwali doonaan cuntada maalin kasto. Kadibna gurigooda ayay diyaaradda soo raaceen, waa ayna imaadeen. Waxayna is heleen aabbahooda. Sheekadana meeshan ayay ku eg tahay.